aad iyo aad nabadoon u ah oday u ah waayo aragnimo iyo khibradna u lahaa golo shacab hogaamintiis ayuu ahaa khibraddaas iyo waayo aragnimada u lahaa iyo dulqaadkiisana waa midda lagu yiri waa golihii shacabka ee ugu muxuu ahaay habboonaa ansixinta shuruucda nambarka shuruucda la ansixiyey waxtarkooda dastuurka iyo hogaaminta muddadaas oo golahaasi aanay khilaafi waaweyn oo culus iyo colaado waaweyn aanay ka dhex dhicin ee howlihiisa ay si deganaanshiyo badan ku jirto ay u socdeen waxaana rajaynaynaa insha allahu bedelkiisana bedel khayr qaba inuu noqdo haddii alla yiraa oo golaha sii hogaamiya intaa kadib dalka soomaaliya walaalayaal waa wada ognahay dadka meeshaan fadhiya inta badan golihii shacabka iyo aqalka sare ka koobmaan sharci dejinta dalka iyo maxaan ku radaa golihii wasiirada intaba xog ogaal ayaad u tihiin wadadii dheereed ee lasoo maray safarkii lasoo galay wadadaas dheer oo aad iyo aad wada uu culus ahayday laakiin culays kasta iyo maxaan ku raadaay daal kasta oo laga soo maray maanta aan laga qoomameynayn ee lagu farxsan yahay wixii lasoo qabtay maalintii baarlamaanka golaha shacabka khaasatan andho ama labada aqal ee baarlamaanka la dhaariyey ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay yihiin loo dhaariyey dalku siduu ahaa iyo maanta sida uu yahay muuqaal ahaan gudaha hadday tahay iyo dibadda muuqaalkiisa ah hadday tahay intaba waa la wada garanayaa dhismayaal iyo infrastructureka ama maxaan ku rahdaay waxaa ka qabsoomay dowlad goboleedyada waa la garanayaa siyaasaddu waa iska dhib badan tahay kala ra'yi duwanaanshiyo siyaasadeed mar kastuu jira waana soo jiray dabcan haddana waa sii jiri doonaa laakiin waxay ahayday arrin aad iyo aad looga xumaado in ra'yiga dadka qaarkii ay isku dayeen in ay ku cabiraan ra'yigooda si aan habboonayn oo xoog iyo qore caaradii ay ku jirto ayadoo walaalayaal laga daba leeyahay waa la garanayaa walaalayaal 4 sano ee lasoo dhaafay inta juhdi iyo dadaal ee dowladda federaalka iyo hay-adaheeda kala duwanba ku bixiyeen kala duwana aragti kala duwanaanshiyo kasta oo siyaasadeed oo jirta in si nabada lagu xalliyo inaan annagu meel kasta iyo maqaam kasta oo title ama protocol oo aan lahayn inaan ka soo degno oo aan u soo degno hoos si aan dadkeenna aan ula nimaado dad protocol ahaan mustawaha dowladnimada meesha ay ka soo geli karaan la garanayo ayaad ogtihiin sida aan ugu soo daadegnay oo aan hoos ugu nimiday inaan la fariisanno dhagaysanno la hadalno waxna u sheegno lana doodno welina kamaanaan daalin weli waxaan diyaar u nahay goob kasta iyo golo kasta in aan maxaan ku rahdaay la fariisanno la hadalno doonno inaan ra'yigeena ku qancino dhagaysanana ra'yigooda haddii uu naga fiican yahayna aan qaadano naga fiican yahay iska daaya xataa ra'yi lagu wada jirayo oo dalkana hore u wadayo kuma wada jirayno meesha aan fadhino bartisiqaan bari uma kororto kuma wada jirayno laana laguma wada jiri karo laakiin ra'yi aan ku wada jiri karno taakana allah ka dhigata in yar oo aan horay tabar yar oo dhaqaaq yar ah aan ku samayn karno dalkii horay oo ugu socon karo haddii aan helayno waa qaadanayna horena waa usoo cadaynay waa qaadanay waxaan rabaa dadka soomaalida in aan u sheegno siyaasadda dadkeenna mas-uuliyiinta ah ee la doortay ee jooga ee mustawa kasta leh wixii aan jeclaan lahayn oo dhan ma hayno laakiin wixii lagu wada jirayay
dadku wada aqbali kareen golayaashii loo ikmaday in ay go'aanada gaaraan ay inta ka doodan ay aqbaleenaan haynaa ra'yi wixii nala fiican yaa intaan soo qaadnay aan keennay baarlamaanka federaalka ah waana hay-adda xaqa una dastuuriga ah inay go'aan ka gaarto amuurahaas haddii sharci looga hadlayo dalka dhan uu leeyahay haddii dastuur laga hadlayo haddii maxaanku rahdaa heshiisyo caalami ah iyo laga hadlayo dhammaan hay-adda xaqa u leh dastuuriga ah inay go'aan ka gaarto go'aankeeduna uu kama dambays yahay baarlamaanka federaalka ah waaye golaha wasiirada ma aha labada qaybood oo baarlamaanka mid ka mida ma ahan maxaanku rahdaa madaxweynaha ma aha waxa waaye baarlamaanka waaye wixii baarlamaanku soo ogolaado ayaa madaxweynuhu uu markaa kadib uu daba kacaa uu ku raacaa uu ku ansixiyaa haddii ra'yi kale uu ka qabana uu dib ugu soo celiyaa uu yidhaaho sidaan ay dhaantaa ama sidaan amay ay muxuu ahaay wax ka dhiman yihiin sidaas daraaddeed ayaa annagu ra'yigii aan qabnay wixii nala qurxoonaay ee dalka maslaxadiisa annagu markaanu arkaynay aragtideenna ahay baarlamaanka mugaankeennaa waa nalagu diiday waa laga fiican yahay nala dhahay ra'yigiin dood iyo dacwo kamaanaan keenin annagaaba niri annagaaba keennay annagaaba ka dhacnay see loo diiday maxaa loo diidaa maanan dhihin anoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah oo xaq u leh inaan dib u celiyo baarlamaanka ra'yigan ha laga fiirsado ciladahan uu leeyahay ama waxaana ka imaan karo ma dhihin waayo u dhihi waayo ma xuma ra'yigayga haddii laga duwan yahay ra'yi ka fiican la barbar dhigay inuu fiican yahay waa ku qaadanaya waa qodob in lagu wada jirayo dalkana uu hore u dhaqaajinayana waa ku qaadanaya waa qodob kale labadaas markii la isbarbar dhigay waxyaabo badan oo wixii aan rabnay ama aan soo jeedinay xukuumadda iyo maxaanku rahaa golaha dowlad goboleedyada isku raaceen ay soo qoreen ay soo saxiixeen ay soo jeediyeen baarlamaanka ra'yi ka duwan markuu qaatay kii baarlamaanka ra'yi noo ah kaasaa qaraar noo ah kaasaa wada raacday kaasaan daba joognaa nasiib daro xubno baarlamaanka ka tirsan oo baarlamaanka ka dooday oo ra'yigoodii dhiibtay oo aan dhihi karo nasiib wanaag baarlamaanku ra'yigoodii qaar ka mida wuu qaatay waa lagu raacay koodii oo baarlamaanka qaraaradiisa uu ku darsado qaraar ku gaaray markuu baarlamaanka qaraar gaaray kadib inay inta soo istaageen haddana ay yidhahdeen maya waxaasi sax ma aha waxaa nasiib darro kale ah shalay markaan raadinaynay kursiga shacabka soomaaliyeed intaan soo hor istaagnay baarlamaanka federaalka oo wakiilka ah shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wakiilka ah soo hor istaagnay oo aan dhahnay haddii la i doorto kow lama saddexaan samaynaya maalintii la i doortay ama qof la doortayna aan diido dadka maan siraynay baarlamaanka maan siraynay maxaa isbedelay oo weyn oo dhacay oo ra'yigii oo dhan maxaan ku ihahdaa bedelay ra'yi bedelmi kara ma aha ma ra'yi markaas curtaya mase waa ra'yi soo socday oo muddo soo jiray dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaa rabaa waxyaabaha inay qiimeeyaan oo ay dib u eegaan oo ay fiiriyaan waxaa rabaa dadka soomaaliyeed inayna qiimeeyaan siyaasiyiinta haddaan nahay ama hoggaanka aan joogno ama aan u soo soconno oo aan rabno in nala qiimeeyo waaye waxaana lagu qiimeynayaa waxaan dhahnay iyo waxaan samaynay yaana lagu qiimeynaya waxa qalbigeenna ku jira dadku ma ogaa kartid waxa aniga qalbigayga ku jira laakiin wixii aan sameeyey ficil ahaan iyo wixii aan maxaan ku rahdaa ku hadlay ayaad igu xukumi kartaa igu waxay kartaa dalkan dowladnimadiisa meesha ay joogto inaan ka dhaqaajino ayaan ballan ku wada galnay ayadaan kutubka jaamaca ee qur-aanka kariimka aan gacanta midigta korka uga saarnay inaan dalka aanu dhaqaajino dhinac fiican aanu dhaqaajino dhinaca adduunka oo u dhaqaaqay
بلايين قف دولة كنول مسلم هي قاربة ننعى يقول دقاقين وناقي وآذين إلا شعوب تأدوك كمنا هنا لا دقاقنا الآن صدد إيا لحسنا كقابلني أنديكو قد عسلنا إن أنديكو سيد عنا ما وحاين تاسداء ولا ليان دل كان تاريخ رسي وأقنا بربرك كده دقال السكاية قبل يال دقال hogaamiye kooxeed kooxa kale oo qaarkood muxuu ahay diinta ay sheegteen ku dugaareen waxaasoo dhan waa soo marray waxaasoo dhan marka la isku soo celceliyo hal shay oo ay ka midaysnaayeen ay lahaayeen halka shay waa maxay aniga hebelaa la iyiraa saana la yiraa hebel aniga saana la yiraa oo waxa kaliya aan dhihi kara ay tahay yaa tol ii ahay gadaal inta fiiriyo tolkayo aan dhihi karo nidaam iyo institution iyo shuruuc iyo lawaaix la garanayo oo dadku ay og yihiin inaan ka fogaado go'aan dad badan ka dhaxeeyo oo ay dad badan inta ka tashadaan inay isla gaaraan ay tahay inaan ka fogaado oo maya anigaa iri anaa rabo anaa qaba inaan maxaan ku ihahda aan iraado sax maaha siyaasadda qofaysan aan ka nimaado siyaasadda aan ku dhex maamulno institutionka dhexdiisa institutionka markaan leeyahay xukuumadda iyo sharci dejinta ma aha xisbiyada siyaasad ma rabtaa haa hal meelaad leedahay xisbiyaad leedahay xisbiga aad xisbiga noocaad rabto iyo mabaadida aad rabto ku salayso oo qawaaniinta ogoshahay xisbiga aad xirfad maad leedahay ururka dhakhtar maad tahay ururka dhakhaatiirta aad halkaasaa dhakhtarnimada iyo masaalixdeeda looga hadlaa beeraley maad tahay ururka beeraleyda maxaan ku irahda odayaashiisa la yaqaana aad halkaasaa danaha beeraleyda yaa lagu hayaa macallin maad tahay ururka macallimiinta aad siyaasi maad tahay xisbi aad keligiis qof taagan keligiis rag siyaasi maaha waxaan rabaa dadka soomaaliyeed qarniga 21aad inay fahmaan nin keligiis kooxda ah waa ku soo dhibaatoonay waa ka nimiday soomaaliya waa inay ka gudubtaa oy ka graduate garaysaa waa inay ka qaangaartaa waa inay ka dallacdaa meeshayna inay joogno macquul maaha dalka xisbiya siyaasadeedu aaday xisbiya siyaasadeedaa lagu soo tartamay doorashaa lagu galay waa lagu kala guulaystay dad ururadaas siyaasadeed ee xisbiyada noqon doona qaarkood ku soo baxay maanta ayaa mas-uuliyiin ah oo sharciyad haysto oo qof la magacaabay oo dikreeto lagu magacaabay aan ahayn horey aan u sheegnay waa ku celinayaa waana ku celinayaa dadka soomaaliyeed qof aanay dooranin ma xukumaayo waqti isaga dhuminin meesha ugu hooseyso mustawaha ugu hooseeyo xukunka iyo mustawaha ugu sarreeya intii ka dhaxle dadka soomaaliyeed qof ay doorteen ayaa xukumaya sheekh aadan maxamed nuur waxaa doortay golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeedna waxaa doortay shacabka koonfur galbeed waxay wakiil ka yihiin shacabka koonfur galbeed codkii shacabka koonfur galbeed ee loo soo dhiibtay ayay ku doorteen sidaas daraaddeed hogaamiye muxuu ahay sheekh aadan waxaa doortay shacabka koonfur galbeedaa doortay 13 degmo ee koonfur galbeed ee ay suurto gashay in ay doorashada ka dhacdo dadka xukumaya degmada afgooye degmada baraawo degmada xudub degmada baydhabo degmada diinsor dadka xukumayana dadka degmadaas deganaa doortay dadka degmo kasta degan waxay doorteen dadkoodii degmada xukumi ah iyo
dadkii dowlad goboleedka ku xukumi lahaa ilaa degmadan dadka ku nool dantoodii degmadana waa taallaa dowlad goboleedkana waa jirtaa dowladda federaalkana waa jirtaa tii dowladda federaalkana waa usoo socotaa way doona degmo kasta 3 doorashay gashay ay gelay hadday u dhiman tahay councilkeedii degmada inay doorato golihii wakiilada ee dowlad goboleedka inay doorato baarlamaanka federaalkana inay doorato degmadaas dadka degan degmadaas 3daas cod ayay bixinayaan sidaas daraaddeed dalkaani waxaa ka bilaabatay dhaqanka ah dad ay dadku doorteen hogaamiyayaal ay dadku doorteen in ay dadku shu'uuntooda inay go-aan ka gaaraan warin cid doorata aanay jirin oo keligii boodayo dhacayo ordaya oo dowlado shisheeye inta lacag ka soo qaata lacagta taybinaya codadka waa gadanaya dadka waa gadanaya dhahayo boqolaadka kun ee qof ee koonfur galbeed ka codaysay yaa lacag la gaaro yaa lacag sii karo corruptionka meesha ku dhammaadana waa meeshaas ogaada doorasho qof iyo coda waxay dishaa corruption ay dishaa musuq maasuq iyo cod gadashay dishaa yaa ii tole hey dabbaal meel inta soo istaagay yaa ii tole hey yiraahdey dishaa dalkan masiirkiisa saxda ah meeshuu ku hagaagi karo waa doorasho qof iyo coda way bilaabatay way dhacday wayna saasayna ku dhammaanay ilaahay idinkiisa diyaar waxaan ogolnahay ciddii cillada ku aragta ilaa waxa doorashadu iyo nidaamka iyo waxa aayadan munazal oo ilaahay soo dejiyay maaha fikir dadeeda la keeno waa hadduu gadoloo la leeyahay waxaan raalli ka dhahay ogolnahay miiska in la soo saaro la yiraahdo meeshaana cilladaana ka jirta nidaamka xisbiyada cilladaana ka jirto nidaamka xeerka doorashada cilladaana ka jirto guddiga doorashada garsoorka ah ee dadka u dhaxeeya maxaa cilladaana ka jirta waqtiga cilladaana ka jirta maxaan ku yiraahdaa amniga cilladaana ka jirto laakiin aniga waan adduunyada aniga mar hore ka tagtay soomaaliyana hadday ka tegay hadda ay ka tegay haddii alla yidhaah marka waxaan rabaa dalka jihada u dhaqaaqa waa jihadaas doorasho sideedaba eeday leedahay waxay aada u leedahayna waxay tahay waxay leedahay kuwa guulaysta iyo kuwa laga guulaysto kuwii laga guulaystayna dadaalkaynaa yaraay waa dadaal yarayne sanadka dambaan dadaalayna ama dhahaane intay ka dhacday xaggaa ka duleeshay iyo xaggaa ka jeexneed iyo xaggaa laga laabay iyo xaggaa laga waxeeyey ayaa muxuu ahay jidka lala soo wada istaaga caadi waay soomaaliya u gaar maaha marka waxaan leeyahay walaalaha siyaasadda danaynaayo ee heer kasta doorashada waa sidaas kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay leedahay kuwa laga guulaysta noqo dadaalkaaga la imaaw dardartaada la imaaw fikir lagugu doorto qurxoon la imaaw mustaqbalka ka hadal berri maxaad damacsan tahay oodan been ka sheegayn dalkan iyo dadkan berri maxaa la jeceshahay maxaa la damacsan tahay sheeg oo dhabka ah xeeladaysi iyo maxaan ku yidhahdaa campaign iyo luuqmar aan ka ahayn sheeg dadku ra'yigaas ku doorto waa sheegnaa siyaasadda suuqay leedahay suuqna badeecaa lasoo dhigtaa oo lagu kala gataa ninkii badeeca xun keensado laga gadan maayo ninkii badeeca fiican keensadana waa laga gadana suuqa badeecada la keensadaana waa ra'yi aragti soomaaliya noocaan ahaan rabaa berri inaan horseedo oon hogaamiyo oon ka mid noqdo oon wax ku darsado oon talo ku lahaado saanaa lagaa rabaa laakiin caray gara anaa og shalay basaan jooga shaanaa laga dhacay intaa laga booday xaggaa la waxeeyey yaahuu a dhacday maxaan ku yidhahdaa hebelo waa xun yahay waa qalqalloocan yahay kaas waaye waxaas wax macno ma laha
shalay waana dhaaftay wixii shalay naga qaldamay ma sixi karno waxaan samayn karnaa maanta inayna naga qaldamin biri inayna naga qaldamin laakiin shalay inta u noqonno wixii shalay ahay ma soo sixi karno laakiin biri inayna naga qaldamin aan yeeli karnaa shalay waayo aragnimo iyo khibraday leedahay laakiin ninka shalay la nool shalayaa kan dhacday shalayaa kaas war shalay maalintaas maalinteeda shalay maanta ma aha duruufuhu isku mid ma aha duruufihii shalay duruufaha maanta waa kala duwan yihiin duruufaha maanta iyo kuwa berina waa kala duwan yihiin u diyaargarow kuwa beri soo socdo ee quruxda badan u diyaargarow sidii loo qurxi lahaa loo hagaaji lahaa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed yaanay ku kadsoomin kelmadaha oraahyada faaruqa ah oo waxba aanay ku jirin kelmadaha oraahyada xumaanta iyo colaada iyo maxaan ku rahdaay yoomul qiyaamaha inuu dhacayo ka sheekeeyo waa la dumayaa waa la dhacayaa waa la kala tegayaa tuuladayaa la kala aadayaa jaanib ma jirto meel la kala aadaa male meel la kala tegaa male 36 sana duruufo gaar ku jirnay maanaan kala tegin waa isla joognaa waan isla sii joogaynaa nin xun hadduu hogaamiye yahay iyo hadduu mid ka hooseeya yahay asaxun reer hebel aan xumayn degaan hebel aan xumayn cid aan xumayn dowladda federaalka ee soomaaliya baryahan waxaan maqlaa dowladdiio muxuu war xasan sheekh nin oo bulsho rayidooba aa jiray maxay tahay hadda muxuu ahaay anuu qor ma qabo weligeyna ma yeelanin maleeshiyana ma yeelanin waxna ma yeelanin dadka meeshaan fadhiya in badan oo kamid oo saaxiibada ah oo soo wada noolan ay garanayaan maalintii doorasho la doortay bishii September 2012 baabuurka aan raacayo oo askari ilaala ah oo raaca maanta sa igu horeysay noloshayda intaan soo noolahay gurigaygana weligay waardiye ma joogin baabuur aan magaaladan ku dhex wata magaaladan ku noolaaye dhex mari jireen weligay ilaala ima raacay ma ahayn dadka ku xaragooda qoryaha iyo hubka iyo qajajacda ma ahayn haddana weli ma ay hala dhigo hubkaan taagana hubka hala dhigo waa taagana mas-uulaan ahay 5 jeer ayaa cadowga khawaarijtu inay indiraan ay isku dayeen oo la wada og yahay magaalada muqdisho iyo banaankeeda intaba ومع ذلك ما أنت وحان جوجا بابور عيدا أو قرية كرر عن هنا ويتبكعن ويلالن مقال مقال حمد جوجو لأنه أما باني وما بان دبك بابور كأي هوك كأي قرية أي حرجة كم نقطي كل حرجونا يو إعدان وأسكري قرية شرب حبة السيرة قالوا درس عن وأركع إن أنا دبك إن هذا أجيد وأركو ورمركاد في عنتها وأركاية مركز بلايتها وماركو إنها دتك هوجانك أي فرسنا وصامر المجال ونمان هوجامية كوحديا ومجال مريان مجال لن أي قريريس بابور بتكبتكو كوية مدكو كقريوية قبا مجال الإيران أمان المهرين ما أنت أو أنت أنا أتيجي قرية أتيجي بابور تتيجي أمانا هيسنا كي أرك فيها أرجع قولي وجيدستي سواء من در هذا لكن مكة معنينا دولة لماذا عصرها محليرة دولة ستيت واستعمال كهب كشرعية سن أما واستعمالك أود شيء شرعي سن أود شيء شرعي سن الدولة بس عليه قف مرة ما يركره والرأي قال سو عبر بنانك إماو مظاهرات كان لو أقول يه بنان بحال لو أقول يه مسؤولية خاله مقرب وحقرب عن نقول بروبرتك ضدك أمانك دجناشيها حقربين لكن قريان سوق قادنا قب أيام دويتو لما صاحبها وحكوا دودا مظاهرات سميني وانو ديني
qarniga koob iyo labaatanaad oo meel kasta ay muxuu ahayd ay daroon media uu leeyahay sawirayso wax qarsoomi kara ma jiraan toban wiiloo dhalinyaro ah masawirka xasan sheekh oo qalqalloocan inta loo soo dhiibo qoryada mishaaraana lagu ilaaliyo war masawirka xasan sheekh oo qalqalloocan darbigaas ku dhigsaa daartid xataa qof ka fujinaysa male laakiin qorda mishaara la soo daba kicina ku ilaalin wiilasha masawirkaas qalqalloocan watay iyo kuwa qoryaha wato ilaalinaya kuwa qoryaha wato ilaalinaya badnaay tiraan waa sawiran yihiin ma ka been sheegay waa la arki karaa maanku ha shaqeeyo caqligu ha shaqeeyo dhaqanka suuban ha shaqeeyo dowladnimada waa muqadas ha la ilaaliyo lianna waa noloshii dadka waay mid tabar yar mid baahan mid hanti leh mid baahiyo gaara qabo intaba waa soo marnay qax kala orod kala muxuu magaciisi dowladdu amni darro ma sababayso amniyay sababee amni darraha sababin adiga muwaadinkow dowladdu jidadkii magaaladan xirxirnaay ee intaasoo sano soo xirnaayay furtay ha xirxirin jidadka ha xirin hadda jidadkii la furay oo muxuu ahaa intaasoo sano xirnaay maanta in qof inta yimaado midna baabuur dhagaxa ku dejiyo midna baabuur carraa ku dejiyo midna maxaan ku yidhahdaa haskows oo isku rakibugda macquul maaha waa ku dheeraaday aad iyo aad ayaan mar kale iyo mar kale aan u hambalyaynayaa hogaamiye sheekh aadan maxamed nuur waxaan sidoo kale hambalyaynayaa mar kale iyo mar kale shacabka koonfur galbeed ee sida deganaanshiyaha iyo ammaanka iyo maxaan ku yidhahdaa disibliin kale inta u galo doorashada ka soo baxday xamar doorashadii ka dhacday waxaa layidhaha askariya booliisaha nin dharbaax 13 degmo ee koonfur galbeed doorashada ka dhacday askarina qof ma dharbaaxin xitaa marka ilaahay idankiis kuwa dambana waa sii qurxoonaan doonaan doorashooyinka taaramyada dambe imaanayana midaan waa kasii qurxoonaan doonaan laakiin haddaynaan bilaabin wiil inta dhasho ma dhaamiyo wiil inta dhasho inuu dhaamiyo fikra u dhaxaysa war wiilkii hadda uu dhashay aan fursad siina inuu gaaro cimrigiisa iyo xooggiisa awoodiisa meeshuu ku dhaamin lahaa oo reerka biyo u keeni lahaa dimuqraadiyaddii hadday bilaabatay aan gaarno meesha dimuqraadiyadda ugu fiican afrika inaan lahaan karno waana soo lahan inaan lahaan karnaan aaminsannahay ilaahay haddana waa leenahay aan aamino aan ku dhaqanno waa hab nololeed dadkeennu dhaqan ahaan ay u leeyihiin aan socodsiino aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu